السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سلام الدمان أصحاب ميل والبود جوكتين هدي أدكو عصبتا جنال كسبسكرايب سارسينا شير قري هدي أظهر نول جوكتنا نولا قري كومنتي قروح دا بدن هوس نوغو سوقر. ما أنت موضوع عنك شاكيسن إنه وحي هاي موضوع كسابسن عقلي. هرتا عقلي محويها تاس وينا اسويدينو عقلي محويها أديك عقلي اللي هاي قفل بوحو آمنسن إنه أقل ليها يس أنا أقل ليها سو حن آمنسن إن أقل ليها أديك واحد آمنسن إن أقل ليها لكن أقلي حو نوترا حوسو كسابسن هاي أقلي جاجا وحول بدو استعمال كرتا وحول بدو قصمين كرتا قفك بني آنك عقلي جيسو meel alla meeshuu naco ayuu uga tagaa wax uusan rabin wuu diidaa intaasoo dhan waxa keenaya caqliga laakiin qofka bini'aadamka haduusan wax garanin waxna ma diido waxna ma yeelo haduusan caqli lahayn waxna ma diidi karo waxna ma yeelo meel kama tagi kariyo meelna ma toosin karo laakiin inaad shaqayso inaad meeshaad rabta aad ka tagto inaad waxaadan rabin aad diido inaad adiga go'aan aan leeyahay amba muuqaal aan leeyahay aad tira waxa soo dhan waxa keeni karo inaad caqli leedahay inaad adiga caqli leedahay balse waxaan kaaga sheekeynayaa sheeko hadda ka hor nin caqli badan oo sameeyay nin caqligiisu aad u badan yahay oo sameeyay kaaga sheekeynayaa niba wuxuu ahaa faqiir xaafada oo ku nool yahay amba wadanka oo ku nool yahay dadka jooga oo eheladiisa amba dadka kale todo meesha degan wuxuu ahaa dad aad u taajireena balse dadka taajiriinta waxay u arkaan qofka haduusan waxaysanin inuusan aqli lahayn saas kama dhigno qofka haduusan waxaysanin kama dhigno inuusan aqli lahayn dadka dham waxay aaminsan yihiin qofka haduusan waxaysanin inuu qof aqli la oosan ahayn qofka haduusan qof shaqaysayo oo dadaalaya oo san ahayn inuusan ahayn qof aqli leh laakiin sidaas kama dhigno qofku markuu dadaalayana aqliyo leeyahay marka uu shaqaysanayana aqliyo leeyahay marka uu si shaqaysayna aqliyo leeyahay laakiin dadka taajiriinta ah waxay aaminsan yihiin qofku haduu faqiir yahay inuusan aqli lahayn laakiin saas ma aha ninkaas wuxuu ahaa nin aqli badan laakiin nin lacag la haysta ma ahayn dadkiisoo idilna lacag bay haysteen laakiin qofkaagu lacagta uu haysta adigu shaqo ku milihida asaga iskale asagay gooni u tahay adiga kama baahi beeli kartid qofka walaalka wuxuu haysto adiga waxba kuma qabsan kartid qofka walaalka wuxuu haysto ilaa adiga aad wax sameysata ma ahane ilaa adiga aad shaqaysata ma ahane okay ninkaas wuxuu ka yaabay dhibaatada faraha badan qofku markuu dadkiisoo dhan uu lacag leeyahay asagana uusan lacag haysanin wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu dadka dhan uu ka liito sababtoo waa la tusayaa inuu dadka ka liito ninkaas wuxuu ahaa nin caqli badan fikradiisu aad ay u dheer tahay ka fikira wax badan wuxuu karaahsaday dhibaatada ay faqiirnimadu ku hayso amba lacag la'aanta ay ku hayso dadkiisuna si fiican ay u nool yihiin lacag ay haystaan waa dad nolol heer sare ku jiro laakiin asagu ma dareesan inuu nolol heer sare ku jiro sababtoo lacagta ay haystaan ma haysto balse wuxuu ku fikiray caqligiisu shiilay meel uu tagay aad buu u xisaabtamay wuxuu isiri adiga caqliga kugu jiro muxuu ku qaban karaa inaad wax cunto inaad jiifato kaliya caqligu ma aha laakiin waa in caqligaaga oo wax ku qabto muxuu ku qaban karaa uu isla sheekaystay wuxuuna ka soo saaray fikrad oo meeshuu maanta joogo uu uga tagi karo wuxuu sameeyay wuxuu ku fikiray inuu dadkan lacagta haysto wax uu ka dhaadhiciyo oosan ka qaato lacag uusan xoog uga qaadan iyagana aan wax ka dhibaynin oo aan faqiirnimo aan u keenaynin asagana wax u tiri karto waa asaga soo u fikiray okay wuxuu sameeyay microphone uu qaatay uu la baxay wuxuu tagay xaafadii dadka badan ku noolaay oo taajiriin tahay balse microphone-kii uu ku wareegay wuxuuna u sheegay inuu u haayo wadaday ku taajiri lahaayeen maanta waxaan idin hayaa wadadaad ku taajiri lahaydeen wuxuu ka dhaadhicinayaa dadka taajiriin tahay asaguna waa qof faqiir okay waxa la yiraahdaa ninka waalan muxuu sheegayaa
warninka waalan maanta muxuu sheegaya ma soo waashay sababtoo qofku markuu soo waxaysan dadku waxaa ka dhaadhacsan inuu qof waalan yahay balse dadka waa soo baxeen oo banaanka isugu soo baxeen jawaab su'aaluna weydiiyay su-aasha weydiiyay waxay ahayd ma jeceshiin inaad naqatin dad taajireena waa taqaaneen dadku markay xoogaa haystaan waxay jeceliin in loo badiyo ay badsadaan oo nin walba wuxuu ku fikiraa maanta 10 kun aad haysataa haddaa 15 kun heli lahayd 20 kun aad haysataa haddaa 25 kun heli lahayd ma arkin aniga weligay intaan noolahay nin dhahaya aniga lacag igu filnaa haystaa laakiin waa la sii raadiyaa lacagta maalin walba wadadeeda lagu socdaa waana la sii raadiyaa okay waxay yireen ha waa rabnaa waxaan idin hayaa wadada ku taajiri lahaydeen ma jeceshiin inaad taajirtiin ha waxaan idin hayaa wadada ku taajiri lahaydeen haddaa jeceshiin inaad taajirtiin ha haydeen waa jecelna inaan taajirno balse wuxuu u sheegay inuu u sheegi doono sababta ay ku taajiri lahaayeen dadka way yaabeen war ninkii asaguba taajir maahane sidoo anaga noogu sheegi karaa wadada ku taajiri lahayd waa la isweydiiyay balse waxay isku raaceen inay bal kasoo waxa ninkan oo wada ay ka sal gaaraan wuxuu u sheegay markaas inay waraaq soo qortaan nin walbo sidoo inuu u taajiro oo rabo $1 oo ku soo ridaan boostada ay soo dhigayaan uu sheegay wuxuu boostada soo dhiga dadkii waraaqda way soo qorteen $1 waxba lama aha nin taajira amba qof nool oo meel degan $1 waxba lama aha laakiin ninkan halkaas $1 markay aruurto lacag ay u tahay bal fiiri meeshuu ka fikira haddii 100 kun oo qof ay $1 ku sii sameeyay noqonaysa waa lacag badan okay dadkii way soo bixin qof walba $1 ay soo qaadatay $1 ee qof walba soo qaadatay halka $1 markay soo qaatay waraaqda qof walba waxay jeceshaa boostada yaa la dhigay lacagtiisa boostada uu ka aruursado waxay u noqosay inta soo bilyan waana $1 qofkaana waxba kama dhibayso asagana waxbay u taraysaa uu aruursaday lacagtiisii jannal oo furtay saano leef ugu soo galay dadkii wuxuu yiri soo bata imaada way soo bateen dadkii waxay yireen wadadan ku taajireyna lacagtii $1 wuu qaato bangiga ku soo shubtay wuxuu yiri hadaba waxaad ku taajireysiin sida hadda sidan aniga idin sheegoy ku taajireysiin waxba uma sheegaya $1 wuu qaatay wuxuu yiri sidan ku taajireysiin balse sheekadaas markaan aqriyay waxaan xasuustay bari baa anagoo ciyaal waxaan samey jirnay waxaan tagi jirnay nin waqti oo nasiib waraaqo inta lambar ku qoran noo gadiyo markaasoo kunko naga qaataa kunkii markuu qaata waraaqo noo dhiyo markaasoo dhaan nasiibkaagi maaha waa sheekadii oo sina loo gadin waa bixi hadana kun kala qaaday because wuxuu na tusayaa wax meesha saaran oo nanac ama buskud ama wax la mid ah waxaas markuu na tuso wuxuu leeyahay ninkii kunka shilin ku guuleysto waa alaab 10 kun oo shilin amba 20 kun shilin oo joogto oo na tusayaa waraaqo wuxuu ku soo qoraa 10 ilaa 1 ilaa 10 uu ku soo qoraa inta u dhaxayso uu ku soo qoraa waxaa laga yaabaa markuu 20 kun oo qaato hal shay oo 10 kun in qofka uu dhaho uu ku guuleystay laakiin dadka kale lacagta uu ka aruursaday waa sheekadii sidaas oo kala ahayd bis waad bixaysaa kunka waa laga qaaday wuxuu ku nasiibkaaga ma adii waxaad u jeedaa buskudkii iyo jalaatadii meeshii saarnay waa baxda dana kun kala adkeentay ma guuleysana lagu dhahay haddana waa noqonaynaa kun kala soo qaadaynaa ma guuleysana nala mar afaraad waa noqonaynaa kunkii soo qaadaynaa $5 yani shilin ahaan la siinaya oo halka 4 xabo ku shilin la gado saas 4 kunaad ku maroosaa oo shilin yani waa tii oo kale ana markaan saas u fikiray oo maskaxdayda aan xoogaa ka fikira taas oo kale ila naqatay waa mahadsantihiin channelka la sii share gareeya aad baad u mahadsantihiin